bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysiga toddobaad. barnaamijkan oo inta badan aan uga hadalno arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo qodob kale oo dabcan mudan in bulshada loo ifiyo, waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa islaamka iyo nidaamka dowladnimada. waxaana marti noogu ah oo qodobkaasi nala faakhidi doono Sheekh Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee muddada dheer ku soo jiray arrimaha la xiriira dacwada islaamka. inta aan u guda galin barnaamijka waxaan jeclahay inaan in kooban iskiin baro adiga iyo Sheekh Cali Wajiis. waxa uu sanadii 1962 ku dhashay degmada Cadal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. intii u dhaxaysay 1972 ilaa 1982 waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe iyo saraba ku qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. muddadii u dhaxaysay 1983 ilaa 1987 ayuu jaamacadda Islaamiga ah ee ku taala magaalada Madiina al-Munawwara ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya kaga bartay kulliyadda daraasaadka islaamka, isagoo isla sanadkaasina ku soo laabtay dalka Soomaaliya isla markaana baraka noqday jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee ku taalay magaalada Muqdisho. sanadkii 1991 ilaa 1996 oo xogayo guud ka noqday majmacii culimada islaamka Soomaaliyeed ee uu madaxda ka ahaa Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Macalin Xasan. sanadii 2000 ayuu ku biiray sheekhu dawladda kumeel gaarka ahayd ee xilligaasi lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Djibouti, isagoo xubin ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya muddadii u dhaxaysay 2000 ilaa 2003. sheekhu hadda waa la taliyaha dhinaca islaamka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale uu xubin ka yahay hay'adda culimada Soomaaliyeed. Sheekh Cali Wajiis, aad baan kuugu soo dhaweynayaa Studio Universal inkastoo aanay ahayn markii ugu horeysay oo aan kulmayno waraysi yeelanayn. soo dhawo. way aad oo mahadsan tahay. waxaan ugu horeyn rabaa inaan ku weydiiyo islaamka iyo dowladnimada maxay ka qabtaa dowladnimada islaamka horta? bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. marka hore Maxamed Ali Maxamed iyo Bahda Universal TV Nairobi iyo xarunta Muqdisho iyo dhammaan daafaha caalamka aad baan idin salaamaya. waxaan ku hambaleynayaa runtii waxqabadkiina iyo hormuudnimadiina xagga warbaahinta iyo dareenka dalka iyo dadka iyo dowladnimada sida aad la socotiin oo jaan qaadeen. su'aasha haddaan u noqdo, runtii islaamku dowladnimada isaga ayaaba dowlad casri ah oo qiimo leh oo miisaan leh. caalamka isaga ayaa markii ugu horeysa dhisay. waxay dowladda nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam hogaaminayay sida la ogyahay, oo arkaan dowladnimo ay ku dhameystirreed iyadoo caalamka oo dhan oo fowdo ku jiro iyo madax yar oo maartay boqortooyo yar oo qabaa'il ah isku daryeelay iyo diimo maartay madaahib ah isbedel ku dhaceen oo dagaal iyo siraac ku jira adduunka oo dhan. sidaas ayuu nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam islaamku markuu soo degayay jasiirada Carabiga iyadana fowdo ka dhisan tahay iyo dhulkan hadda Yurub la yiraahdo iyo ilaa qaaradda Hindiya ilaa Afrika oo dhan mulug iyo boqorro iyo maartay niman maartay qiyaasare ah ayaa iyo waxa isku dhibnaa dadka diimaha markaas betelay iyo afkaaraha ayadoo marka caalamka oo dhan uu gubanayo oo dib badan oo ka jiro ayaa islaamku horta soo degay muddo hadda laga joogo 1450 sano taqriiban marka uu soo degay islaamku oo ilaahay uu soo dejiyay Maxamed sallallahu alayhi wasallam. تعاليمتي قرآنك iyo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo habdhaqankiisi iyo tadbiiqiisa amaliga ahay waxay abuureen dawlad casri ah. ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisu ku waajibiyay in dawlad la helo oo dadka fowdo looma ogola, laana muhiimadda iyo risaalada nabiga loo soo diray asalkeedu waxay ahaaday in koonkan horumar laga sameeyo. bani aadamka waxa loo abuuray laba shay oo quraanku noo sheegay: inuu rabbigiisa caabudo oo alla uu ku xiraado, oo noloshan adduunyada waa in yare inta yaro adduunyada joogana oo ahaado qof mustaqiima oo asaguna nabad gala ummaduna ka nabad gasho, waxna soo kordhiya waxna hagaajiya. markii uu aakhire aadana ilaa nolosha adduunyada waa kooban tahay inuu nolol wanaagsan oo dheer oo ixtiraam leh ilaahay agtiisa maarta alla ugu diyaariyay oo abaalmarin looga dhigayo wanaag uu soo qabta adduunyada. hadafkaas ayuu abuuran yahay. bani aadamka saas loo abuuray. ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu nabi aadam oo aan ka nimid kulligeen abul bashar bani aadamka oo dhan aaba u ahaa ka soo farxamay markuu abuuray wuxuu yiri malaa'ikta asagoo la hadlayo cid kale marka adduunyada koonka ma joogin rabbiga iyo malaa'iktiisa wada hadlaaya. aadam markaas la abuuray inni jaa'ilun fil ardi khalifa ayuu waxaan geenayaa dhulka ahad khaliif ah oo wakiil ka ah waxa wanaagsan inuu qabto waxa xunna oo la dagaalamo oo dhulka hagaajiyo. marka halkaas laga soo bilaabo ayaa dowladnimada marka ilaahay subhanahu wa ta'ala adkeenayo. waxa kale oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka soo dejiyay aayad alla uu leeyahay: ya ayyuhalladhina aamanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasuula wa ulil amri minkum.
macnaha ayadda waxa waaye dadka mu'miniinta ah oo ilaahay adeeca oo ka amar qaata rasuulkiisana adeeca oo ka amar qaata madaxdiinana ka dambeeya oo ka amar qaata oo adeeca wixii ilaahay rasuulkiisa ku adeecaan madaxdan ku adeeca marka halka culimada fiqiga culamaa shariica islaamiga wal fiqh islaami waxay yiraahdeen ilaahay maadaama uu waajibiyay madaxda in la adeeco waxa isla amarkaas ku jirta wujuubkaas in madaxda la abuuro horta la doorto ilaa waxa la adeeca oo laga amar qaata qof jooga axad jooga marka aayaddu waxay tusinaysaa dimnan in dawladnimadii la yagleelo oo la dhiso oo dadka ahlu xalli wal caqdiga la yiraahdo oo talada u saaxiibka ah oo mujtamac kasta ilaahay uu ka soo saaray oo hulmuudka ka ah inay inta isu yimaadeen xeer iyo nidaam iyo madax ay samaystaan halkaas ayuu ilaahay ku waajibiyey nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu horeeyay idoon zaka la waajibin oon soon la waajibin oon jihaad la waajibin oo xataa khamrada aan la xarimin oo muharramaad badan aan weli laga hadlin ayuu alla wuxuu waajibiyey in dawlad laga dhiso magaalada Madiina Munawwara markuu uu soo haajiray sallallahu alayhi wasallam halkaas ayaa marka dawladdu ka yeegalay kadib ahkaamta soo degtay sirta ku jirta ama xigmada ku jirta in ahkaamtu ay ka dambayso dawladda waxa way ahkaamtaas aan sheegayno dhan waxa hogaamisa oo hagta oo yaani ilaalisa oo dadka ku saxda dawladnimo dawlad marka dawladda hadaan la helin waxa lama qaban karo lama jihaadi karo jihaadka waxa hogaamiya markasta dawladda hogaamisa shacab jihaad ma sameyn karo koox yar oo saawasho jihaad ma sameyn karto jihaadka dawladda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo khulafaa ar-raashidiin ila muslimiinta maanta wuxuu yimaada jihaadka markii dalka iyo dawladda khatar u galo oo cadow shishay isku daya dalka inuu damco oo dhibaato gaarsiiyo dadku inay iska difaacaan iyadoo dawladdu horkacayso marka ahkaamtaas oo dhan waxay ka dambaysaa dawladnimo sida daraadeed ayaa ilaahay wuxuu waajibiyey in dawlad la dhiso culimada islaamka waxay yiraahdeen hadal sid umar ugu caansan hadal ajiib uu yiri la islaam illa bi jamaa wala jamaa'ata illa bi imara wala imarata illa bi ta'a wa hikma سيد عمر ودولة لماذا نكي رجع تأسيسي بعد ذلك وعن سنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر وحول الله إسلام ما جرته إلا بجماعة ضد إسو تجي إلا هلا ما هنا ودينتي دولة نمدي إسو تجي ولا جماعة أنا ما جرته يجري وما ما كرته إلا بطاعة إلا بإمارة إنه كان لسميست أو أمير يا مدح ويني إلا دورته ما هنا والرأس اللي هلا مدح اللي هلا ولا إمارة ما كرته إلا بطاعة haddana madaxdaasuna waxay madax ku noqon karaan oo ay haybad dawladnimo ay ku gudan karaan waajibaadkooda in la adeeco oo laga amar qaato marka sidaas ay marka islaamku oo dawladnimada u taasisay dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay oo kadib burburkii dawladii wixii ka dambeeyay markii dawladda Soomaaliyeed jiritaankeeda ay soo laabatay oo dawladii ugu horeysay carta lagu soo dhiso adigu xubin baarlamaanaad ka ahayd ilaa hadda dawladihii dalka soo xukumay caqabada badan jiray oo dawladaha ku horgubnaa qof xogaal oo gudaha Soomaaliya joogay tahay aqoon-yahan oo wax badan kala socda xaaladda Soomaaliya maxay kula tahay caqabadahaas way keeni jireen maxaa talaahud u jeedinaysaa hoggaanka cusub oo si caqabadahaasi uga fogaa ma sha Allah aad ma santahay anigu ficlan soo sheegtay waa dadka aad ula socdaan kamid ah waxa dhacaya runtii Soomaalidu waa dun aad u fiican bay leedahay waa dawlad jeceshahay laakiin nasiib darro inta badan 50 dhowrkii sano ee dalkan dawladnimada Soomaaliya laga soo bilaabo 60 ilaa maanta dawladihii dhismaayay dawlad oo calaamadihii dawladnimada iyo muqawamaadka dawladnimada u dhameystirmay oo ku shaqeysay runtii aad bay u yareed caqabadaha ugu waaweyn marka oo ilaa hadda taagan oo runtii aan madaxweynaha cusubna ku baraarujinayno waxaan ku soo khulaasay karaa afar qodob oo afarta ugu waaweyn ah horta midda ugu darna waxa waaye xiriirka shacabka iyo dawladda ka dhaxeeya inay inta badan dawladuhu ay ku fashilmi jireen oo macnaheedu taas ay tahay in madaxdu markii la doorto waa inay istiraatiijiye hufan oo shacabku wada siyaasiyiin way qiimeynayaan dadka Soomaalidu aad bay siyaasadda u jeceliin in la socdaan gudaha dibadda marka waana midda keentay hadda inay horumar badan ka sameeyaan markay jaaliyadka diaspora tageen yani maadaama dad dhaqaaq badan ay yihiin inay maanta galayaan gala wasiirada dawladda ugu si kala kale ay soo galeen ko istiidiyada maartay meel badan oo Mareykan iyo Yurub ay kamid marka waa in madaxdaasu markastaba meesha ka duulaysa ay tahay wax u qabadka shacabka sida madaxweynaha oo rajaynayna inay suurto gasho iyo in shacabku warbixin la siiyo joogto ah waxyaabaha ay higsanayaan tilaab loo qaado tilaab la qaadana loo bandhigo la qaadi waayna iyagoo si u qancaan asbaabta laga qaadi waayay loo sheego xiriirkaas aad u gaabayso ahaa dawladina Soomaaliya dhan qodobka labaad oo caqabad ah wuxuu ahaa arinta nabadgelyada taxadiga ugu weyn ah ama challenge-ga ugu weyn ee dalka Soomaaliya waxa waaye in amniga diirada la saaro dawladdu waxay ku timaadaa amni istiqraar inay samayso oo shawka ay yeelato baawarka dalka ka jira kaligeed ay noqoto oo dadka ay markaas noqdaan dad dawladdaas ka dambeeya amni ahaan iyo nolol ahaan iyo walba hadda taasna nimanka hadda dhalinyarada ah
iyo qabaa'ilka laftiisa weli hubka iska haysta iyo maamul goboleedyada hubka ay haystaan oo san weli kii dawladnimada si dhab ugu dhex jirin oo xeer iyo sharci isdhexgelinayo uusan jirin iyo ciidan qaran oo dalka oo dhan xuduudihiisa daafiisa joogo weli dawladihii aysan ku guulaysan inay dhisaan oo la bilaabay laakiin weli meesha raba aan gaarin taxadiga ugu daranna waa kaas amniga difaaca waay oo isaguna u baahan in shaqo badan laga qabto qodobka saddexaad oo ugu daran waxa waaye oo madaxweynahan hadda runtii aad looga rajeynaya asbaab lagu soo doortana ka mida waxa way faragelinta shisheeye ee dalka oo tuhmo badan laga qabo in ay wax badan weeqday Soomaalida dawladnimadeedii in kulli lamada baabi'i karo marxaladaha hore oo inta daciifta oo kula soconaysa laakiin in aad loo yareeyo tartiib loo guuro oo qaraarka Soomaaliyeed iyo hoggaanka Soomaaliyeed iyo talada Soomaaliyeed iyo amniga Soomaaliyeed iyo difaacu oo noqdo qadiyad Soomaaliyeed in la aado Soomaali ay gacanta ku wada dhigto dawladnimadu intaas waaye qodobka ugu dambeeya afraad oo aad muhiim kan waxa waaye dhinacan garsoorka iyo dhinacan waxaan la yiraahdo maartay corruption ama musuqmaasuqa ama عدم الشفافية أما هو فنان لعنته لنا على قالها دولة كستا وإني وحير إلى هاي كنت شتاء سكون وضع وحيابه لبعتك السنة عن شاغنا لحدا كي إلى سديتن كي ودولة الناس الصومالية حوق لهدنا وحي كل سنة وحي هذا اسكت تشي عندنا كل الدول جوج ما يسنا غالق وسيسو مركا العقد الدبلات هذا إيمان يسن أنت بدن شروط إيه وحيابها كله تعريبات بدن مركا إن وحير إدلك اللي سن نظيف الله إلى عليه oo la geliyo amniga iyo khadamaadka mujtamaca iyo shaqada dawladnimada lagu wado si daqiiq loo geliyo oo amaanadaas la ilaaliyo iyo garsoorku inuu hufnaado oo islaamina ahaado oo dadka aqoonidooda iyo dhaqankooda iyo garsoorkooda la soo waafajiyo dad ilaahay ka baqayna loo dhiibo oo inta badan dawladihii hore labadaas yani ka gaabis uga imaajirey marka caqabaadka ugu daran oo rabo marka in dawladan ay wax ka qabato shacabkuna uu gacan ku siiyo arrimahaas waya شيخ علي إسلامكم محوك قبا إن دولة لما عرضوا أما كوح أما قبيل جارة أما حزب سياسي انتبه محو إنه دولة لما عرض كقبا حتى إسلام كمعارض مدنة أنت إيش قلت؟ معارضة إن وحلا معارضة أصل معها أصل إن وحلا أيد إسلام كأكتيس إلهي سبحانه وتعالى مر بحكم عليها مدحدين قدم باي مدحدين ما أطيع يعني اسمعوا وأطيعوا يعني عليكم بالسمع والطاعة وإراد النبي صلى الله عليه وسلم وحدشينا إلى نحن مقاشين أو أضيعدين ونحن قدم حتى أدون وإنت أمر عليكم عبد حبشي حتى أدون حبشة حتى هيدا قبصده معناها وحواي فيري نين للدورة يسقى واجب حتى مد اسك قبصدي وكسب بودي وأن حتى للدورا وهذا أن دتك أقول لهم عرب قريش اسقى حبشة وكل حجر دور وأدون كمذا يجي وشغي كمذا أنت فرصتك اللي ماشي قبصدي أيوة النبي وحيره هلا أضيع على قدم به عجيب معظم الناس مركب قفل الدورتي ودتكنا أقول شيء ذلك أقول شيء أقوانتي هذا للدورتي وهو واجب مطلقة مركب كو معارضة مركب أصل معها معارضة إسلامكو معارضة أو حدث يسوي قانا أو نصيحة لو يقان ري بحنت إسلامكو النصيحة وحوي تلجيدين أو نصيحة أو بحنايو أو اللي وروحنا وقلدينا وحنا لوصحه سنة لو جاجي أما معارضة واحد من يسا وأما الشخص اللي جهر إيمانه يا مدحوينها أما مسؤول كمركز جوجا ماشى oo lagu weeqaayo oo looga hor imaanayo dawladnimada in lagu dhaawaco oo lagu hakinayo danaha qaranka oo dhan halis lagu gelinayo iyadoo baawar qabiil loo adeegsanayo mid xisbi loo adeegsanayo ama shacabka la kicinayo cadaawad naciibka madaxda la gelinayo ma banaana diinta islaamka xaraan ay agteeda ka tahay qofka ku shaqeeyana waa dimbaabaya saan ka warqabno dalka Soomaaliya waxa uu gudbay nidaamka federaalka iyadoo saadka sheegtayba dhowr maamul goboleed hadda ka jiraan gudaha Soomaaliya إسلامك أما علماء سيدي وأركان هرت نظامك فدرالك مسيح نظام صحه لجوه جامين كردالك هذا الصومالي نظامك فدرالك هرت إسلامك وحوي قانا من اللغة العربية وحلو إلى الحكومات الاتحادية دولتها اتحادية ومعناها لصد مي أو مركز دولة اللي حنا خاص إيمانها لبعت مله فائدين بدنا وليين أنا وحتى بوق يران كقري ولما نشر لكن وفائدين كذا وحكم ذا إني شقوين بدنا أبوران ديجان هذا oo dad badan oo dawladda dhexe ay soo gaarsiin kareen waxyaaba anaga dalkeena dawladda dhexe markaziga ahayd markay burburtay deegaanada iyo gobolada tuulooyinka waxa way wax isgaarsiin muwaasalaad male horumar male limaada laano dadka waxay ku ororeen caasimadii Muqdisho la isugu tagay dawladda dhexe marka dawladda dhexe waana makhaayir loo soo wada qadeeyo deegaanadii oo dhan burbura ku dhacay marka sin taas looga kabto waxa uu nidaamkan cusub wuxuu abuurayaa federaalka in deegaanada dadka u dhashay ay intay dib ugu laabtaan ay horumarsadaan sida hadda Puntland horumar badan ka yimid Soomaaliland horumar badan ka dhacay hatta gobolada degmada Cadaado dadka ziyaarta waxay noo sheegeen tuulo yar iska haajirtay degmay hadan noqotay laakiin aan macna weyn lahayn degmooyinkii iyada la cumri ahayo qadiimka ayo ka soo horeeyaba maanta wax jira ma ahan iyaduna arkay maraysaa limaada laano
عنصركان أما فائدة إن دتك ديجان كودا إمال قشطان تدب ولا بتاني نولستان فدرالك يا فائدين كيس كمتها شقابورة كمتها وحكمتها إن لا أبورو محنكو إرادة أمنية لسود ديجكر أو دتك سديجان كيجوجان أمنية وضع سكران أيوه ما دام يقانين لكن دي إرادة مقدسة لقى يا أمنية لقى سوقا يجرو أما كسمايا أما بيدبا أما بكول أما قال كعيو وهلا داليا قرمي إيمانا يا قرمي عيدا كزياد كود قرمي داوعود حقيقي لكن ديران كمركز الأمن هسقطان واسوان كران مركز حكومات الاتحادية أرن أضو في عنواي فايدين بدن هذا لكن وإن أجندة الصومالية لقول إسا قلب كاس وهنجعلها هوس إن لقى حريقه وإن أجندة خارجية لقول إسن دادك الدولة ده أجنبي قايو الله يفضل هالك أجندوين إيو إلي ينق حمرسيه مركز وحي علماء الإسلام كيراهين أفر قضبها دي كبد بعده دولة الفضل هالك وفي عنتها لكن أفر تاس شرط دي وإن لقوا سلايا مدعونا وجيدين إن أفر تاس أو إشكو هايو qodobka koobaad waxa waaye in dawladda dhexe awoodeeda in lagu baahiyo maamul goboleedkaas khaasatan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca wardoonka iyo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis ayuu ahaa oo barnaamijka waraysiga toddobaadka marti noogu ahaa aniga Axmed Nuur ayaa toddobaadkan barnaamijkeeda la socodsiinayay intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.